ma ogtahay dhirta ilaahay dhulka uu nooga soo saaray inay daawo tahay. mararka qaarkood haddii aad si saxan u isticmaashid waxa laga yaabaaba ka hortag inay xanuuno badan kaaga noqoto inaad dhakhtarkana uga maarantid. assalaamu calaykum waraxmatullah, kusoo dhawaada janalkayga. magacayga waa Canab. maanta waxaan ka hadli doonaa geed ama ubax mucjiso leh. magaciisa waa chamomile. wuxuu jiri jiray ama markii researchiyada iyo gadaal dadkii ka sheekeynaya aan soo baaray 5000 years ago ayaa daawo ahaan loo isticmaali jiray. ubaxan mucjisada leh waxaa laga sameeyey shaah. waxaa laga yaabaa marar badan inaad ku aragtid meelaha dukaamada ama meelaha lagu gado waxyaabaha caafimaadka wanaagsan. chamomile tea waxaan ka hadli doonaa 7 faa'iido oo aad u fiican oo jirkaaga iyo maskaxdaada u leeyahay. number 1, hurdo fiican ayuu ka siin doonaa. number 2, nervous systemka ayuu aad ugu fiican yahay. number 3, muscle crampska ama murqaha qofka inay xanuunaan oo kale ayuu u fiican yahay. number 4, stresska iyo anxietyga aad ayaa loogu amaanay inuu qayb weyn ka qaato. 5, digestive systemka oo aad muhiim u ah. 6, belly fatka ama caloosha dadka badan weyn dadka way ka qeyrsheen, marka ayadana faa'iido ayuu u leeyahay. 7, maqaarkaaga. marka haddii aan kusoo noqdo oo si generaal ah ayaan hadda uga soo hadlay oo xabad faa'iidadiisa aan uga hadlo. horta sidaa ognahay hurdada aad iyo aad ayay muhiim u tahay. researchyo badanaa laga sameeyey, meelo badanaa looga hadlay hurdada inay caafimaadka qayb weyn ka qaadato. mar walba oo hurdo fiican ah heshid waxawaaye hormoneskaaga balance yeelanayo, nervous systemkaaga si fiican u shaqeynayo, soo xiriir ayaa mar walba jirkaaga, maskaxdaada, hurdadaada, cuntadaada ka dhaxeeyo. xagan marka hurdada aad ayuu hurdo ku siinaya. qofkan waa muhiim in uu cabo 30 daqiiqo ka hor inta uuna seexanin. markaa sariirta sii tagaysid weliba mar walba aad ay muhiim u tahay qolkaaga inuu mugdi ahaado, inaad moobilka la tagin, inaa markaas mar walba iftiinka iska ilaali. aad qolkaaga tagtay 30 daqiiqo ka hor adigoo iska fadhisid qolkaaga meesha hurdadaad meel ka baxsan, shaahaaga cab. sidee u isticmaalaysaa iyadana aad ayay muhiim u tahay. dhamaadka fiidiyooga ayaan uga hadli doonaa. number 2, marka wuxuu ku siinayaa nervous systemkaaga faa'iidada u leeyahay maxay tahay. mar walba horta hurdo heshid kugu filan, nervous systemkaaga faa'iido ayay hurdada u leedahay. marka wuxuu ka caawinayaa sheexan oo kale. hadda nervous systemka waxaa jiro in ishii kale laga yaabo marmar inaad aragtid ishaada ku boodboodayso, muruq iska kaa boodaya, faraha ku boodayaan, waxyaabahaas waxaa laga yaabaa inaad isku aragtay. maxaa sababi kara marka? waxaa sababi karo hurdada markay kugu yartaa oo dhowr habeen seexan ama stresskaaga badan yahay waa wax ugu badan oo sababa in qofka oo nervihiisa qalqal ku imaado. murqaha kale. number 3, murqa xanuunka iyo dadka mar walba ka sheegto qoorta waliba gadaal meesha oo kore in ay aad stiff u yihiin, ay xanuunayaan oo marmarba la taaban karin, la riixi karin oo adeeg tahay. murqahaas oo kale relax ayuu siinayaa qofka markuu shaaxan cabo. maxaa dhacay? hurdo fiican marka heshid relax badanaad dareemaysaa, murqahaagana relax inay sameynayaan. stresska number 4 aad iyo anxietyga oo isdaba socdo aad ayuu idan ugu fiican yahay. maxaa dhacay? stresska iyo mar walba xiriira ka dhaxeeya iyo anxietyga. qofka bini'aadamka mar walba waxyaabaha stresskaaga hadduu bato, walwalkaaga bato, waxa laga yaabaa in habeenka hurdo fiican helin, hurdada kasoo naxdid. hurdadan hadday kugu yartahay oo kale stresska maalinta wuuba kugu badanaya. markii stresska waxyaabaha kugu keenayana ka fogow, hurdo fiicanna habeenkii saa u seexatid sheexan ku dadaal. number 5 waa digestive systemka. waa midda ugu muhiimsan. aad iyo aad ay muhiim u tahay. waan yareysanaa marar badan, laakiin mid ogow qofka bini'aadanka caloosha waa meesha ugu muhiimsan oo la dhaho caloosha ayuu cudur walba ka bilowdaa. wuxuu ka caawinayaa sheexan in calooshaada gaaskii uu kaa dejiyo, gaas badan aada yeelan. IBS-ka uu ka hortagaa. IBS-ka video kale uga soo hadli doonaa. in calooshaada hawo badan ay yeelato ka hortagaa. qalqalka calooshaada ku imaanaya, calool xanuunka iyo waxaas oo ka hortagaa.
marka meeshan dheefshiidka aan dhaho digestive systemka aad ayuu u fiican yahay dheefshiidkaaga. mar walba horta aniga khibrad waxaa u yeeshay oo arkay oo maanta idin la qaybsanaya oo idinka codsanayana haddii adigana sidoo kale aad la soo kulantay inaa hoos commentiga ugula soo wadaagtid. marka aniga hurdada igu yar tahay, mar walba hurdada igu yar tahay, marmar waxaa laga yaabaa 3 ama 4 habeenimo inta seexdo subax 7 barka shaqada in laga rabo oo 6 kaco. markaas waxay igu dhacdo caloosha subaxaas inay marmar xoog iyo xanuunto, marmar in gaaska iga bato oo acid badan caloosheeda lagu soo daayo. maalintaas in caloosheeda jawigeeda ma fiicna. marka dadka kale number 6 calool weyn dadka aad dad badan ka cawda oo dhaha caloosha ay weyn, caloosha ay buufsan. caloosha marmar waxaa laga yaabaa iyadoo fat ahayn in ay la buufsan tahay hawo ku jirto iyo mindhicradaada kala duxaar badan ku safan yahay ama saxara haddii ku safaran tahay. waxa keenayso ii sheeg waxaa laga yaabaa calooshaada inay weyn kor u ekaato. gabdhaha kale hadeertaa marka oo waqtiga oo menstruationka u haayo ama cycle-ka ku joogo kale ama ku soo dhowya calooshaada inay aragta laga yaabo hawo badan inay caloosha ku buuran tahay, hadhowdina markuu ka dhamaado oo caloosha ku fiicnaato. marka maqaarka oo ugu dambeeya ubaxan waxaa lagu amaanay oo saliido waa laga sameeyaa iyadana oo maqaarka skin care ah. mid kale aad ayuu wuxuu ku siinaya shiny inaad noqotid, inaad dhalaashid, qurux badnaatid. marka maqaarka quruxdiisa aad ay gabdhaha u jecel yihiin muhiim waaye.